بسم الله الرحمن الرحيم. آه، بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي maanta waxaan doonaynaa cashar maanta waxaan bilaabaynaa cashar kuwii hore ka duwan. Maalmihii hore waxaan soo qaadanaynaa casharo ahaa cashar ku saabsanaa waxaan soo qaadanay berihii hore casharo ka hadlayay wordka sidee baa wax loogu qoraa wordka iyo waxyaabahaas aynu qaadanaynay. Maanta casharkeenu uu ka duwan yahay. Maanta casharka aan qaadanayna waxa weeye sidee baa sawirka looga bedeli karaa desktop-ka computer-kaaga. Yani imika this is a desktop waa halkan. Marka desktop-ka sidee baynu uga bedeli karnaa sawirka. Imika aniga sawirkaas ii yaala. Sawirka ay wada aragtaan madow ee halka ayna geedku ka taagan yahay. Sidee baan desktop-ka computer-ka uga bedeli karaa sawirka. Casharkaas maanta qaadanaa. Haddaba marka step-ka koowaad aynu sameynayno marka aynu doonayno laba step baa looga bedeli karaa. Laba meelood baanad ka tagaysaa marka aad doonayso inaad sawirka ka bedesho desktop-kaaga laptop-ka. Step halkan aad imanaysaa dabadeetana waxaad sameynaysaa waatan maxaad markaa dooranay sawirka aad doonayso imika inaad bedesho. Imika sawirkii waa ka inoo yaalay dabadeetana halkaas kuwan ka bedelina. Hadda haddaan kaa ku dhufto muxuu noqonayaa kaasoo kale balileega imika in yar leega aan ku noqono desktop maartay inuu isbedelay exactly uu isbedelay. Haddaan doonayo imika inaan kaa ka bedelo aan kaa ka dhigo balileega iyadana leega waxaad aragtaan in desktop-kaygii isbedelay oo color kale background color kale sawira uu yimi meesha soma. Marka qaabkaas oo kale ayaa looga bedelaa sawirka. Marka maxaynu step-ka koobaad niri step-ka koobaad waxaan control panel-ka dooranaysaa. Markaad control panel-ka doorato waxaad ka sii tagaysaa control panel markaad ku dhufato waxaad ka tagaysaa meesha ay ku qoran tahay maxay waxaad ka sii tagaysaa meesha ay ku qoran tahay display icon. meesha ay ku qoran tahay maxay display halka virtualization ku qoranaysaa. dabeetana waxaad ka sii dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay maxay meesha ay ku qoran tahay display icon ayaad ka tagaysaa. dabeetana saas ayuu kuugu soo baxayaa sawirkii. marka labaadna step-ka labaad aad sameynaysaa aad ku soo qaadanaysaa waxa weeye aad ka tagayso halkan aad right click baad taabanay dabeetana personalization baad taabanaysaa. marka personalization-ka baa kuu fududba aad ka dooranaysaa. dabeetana markaad ka doorato waa kuwan sawiradii choose your picture dooro buu ku leeyahay. halka waxa ku qoran choose your picture dooro sawirka aad doonayso inaad bedesho. marka qaabkaas oo kale ayaa loo bedelaa aad uga dhiganaysaa marba kii ku qanciya aad uga dhiganaysaa. intaasayna maanta asxaabay casharkeena maanta kusoo gabagabaynaynaa. sida aad baad ugu mahadsantihiin sida fiican ee aad casharkeena waan halkan soo dhigo aad ula socotaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.